الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الأحبة في الله وعن كسر الحشرني موضوعي فلنتا هي إلالينتا بلمه هي الشيسية ده الشيسكاسي بلنتاسي هالنقض ميد كالا دحية روح مسلمة أما ضد مسلمة أما هالنقض ميد كالا دحية كوا قالا حنوريو سو شيخني خطبتي هورك كسو هذا لي أحاديث نبي كسو صلى الله عليه وسلم هي أيضا قرآن ومعناها حوجينية هذا التيبان دون إن سي حوجينه نصوص تكسو أرورتي ويفر بدنته الله تبارك وتعالى قرآن الكريم كأوحوا ليه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها مركات بلنتا إلهي بإسكاله إلالية هتشبينينا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إذنكو إلهي الضمين كردكتي وليسوا دارنا يا إلهي مجلس ليسوا دارنا يا إلهي درتي بالإسكو آمين يا إلهي بالضمين لقدقنا يا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ما إلهي مجلس خلق وكو خيامي وديرنان تادو هير كاسي قارسيسان تامية إن إلهي مجلس خلق وكو خيامته وركاس ربي تبارك وتعالى وحده ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هالنقنين سيدتي حريقي أي صهدي أتكيسي دب فرفرتي أو كلا هالنقنين هيدا المفسرين توحي الإسلام نعسأه أو دقنأه أو قلين كهرنا حريق الصهده قلين كدنبنا فرفرته تيو كلا هالنقنين وحي أدحدين يشيسكاد قشين يبلنتاد جنودين دبها أفرنا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إذن كو هشيسية يبلمها إذن كدحية كدغان يكوا اسكو خيامتان وحو غليا هشيسكي يبلنتا با انو ددك ku khayam kitaabka ilaahay buu gacanta saaraya war hadaad ballan beena galaysa maxaa kitaabka ilaahay ku keeyay inaad ilaahay ku dhaarato ummadan buu madax u yahay markaasuu soo istaagaya ummadda horteedu kitaabka baalaha goynaya gacantana waa ku dhufanaya markuu saa u dhaqaanana khayaana iyo laqdabu bilaabaya say ilaahay ku daynaya tabaaraka wa taala ballanta aad galaysaan aad khayaana ka dhigataan isku khayaantaan sababtu maxay tahay qoladii horeed ballanta ku kula jirtay baa kugu yaraatay tuka badan baad raadinaysaa oo ballanta uga baxaysaa qolaad xilfi iyo bahwada kala dhaxeeyay qola ballan kala dhaxaysay qola kalaad maslaxadaadii ka aragtay an takuna ummatun hiya arba min ummah tii hore intaad ballantooda jabisay baad taa aaday calashaani way kaaga badan tahay way kaaga maslaxa roon tahay dantaadii baa xagga gashay waxaad u jabisay ballantii hore markaasaad xagga u leexatay an takuna ummatun hiya arba min ummah badnaanta iyo masaalixda iyo arsaaqda iyo waxani ilaahay waa idinku imtixaanaya wuxuu fiirinaya saad samaysaan maalinta qiyaamadana waa la idin kala xisaabtami doonaa ayad kadib hadana alla ku celiyay wala tattakhiduu aymanakum dakhalan baynakum war heshiisiyada iyo ballamaha dhexdiina ha ka dhiganina kuwa isku khayaantaan fatazilla qadamun ba'da thubutiha maxaa ka dhalanaya hadii ballanta dadka aad ku khayaanto فتزل قدم لقطادو إني سنبر رحته مركي سقنيت كدب هل كاسا وحكا بالله بيس الدين حمو هل كاسا لقاق ليا لقطا كوفا كنيسا دين تيبت كتغيسا أخلاق تيبت كتغيسا إلى مركز بهاليس أدقش فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله حمان أرض مسان jeedintii ilaahay jidkiisa aad ka jeeseen darteed markaas ilaahay wasiiwada wuxuu yiri ballanta ilaahay ha jabinina waxa ilaahay agtiisa yaala ka khayr badan
وحوغاغا الدنيا بلنتا u jabinaysaan waxa ka wanaagsan waxa ilaahay agtiisa aad ka helaysaan hadaad ballanta ilaalisaan inta soo dhan maxaa la isu daba dhigayaa in ummadan lagu tarbiyeeyo akhlaaqda wanaagsan dhaqanka wanaagsan dhexdeeda inay ku dhaqanto ummadahana inay kula dhaqanto ummadda islaamku waa ummatul ahdi wal mithaq waa ummad ballameed waa ummad hadal leh waa ummad qowl leh waa ummad mowqif leh ummad la laab iyo laqdaba iyo khiyaano lagu yaqaan ma ah ha noqdo ciiday ballanta la galay ciid doon ha noqoto u fiirsada sida ballanta loo adkeeyay quraanka iyo sunnadu waxay taqriiriyeen in walaalkaaga muslimka haday gaal islaynayaan xaq inuu kuugu leeyahay inaad u hiiliso oo aad gaalka uga hiiliso laakiin ilaahay masalu ka soo reebay markaad u hiilinayso gaalka aad uga hiilinayso hadii uu ballan kugu la jiro marka muslimka uga hiilin mayso ballantii baad ilaalinaysaa muslim iyo gaal baa is haya gaalkana adigii muslimkaabu ballan kugu la jiraa qayb muslimiinta kamidana way dagaalamayaan qaybtii muslimiinta ay wada dagaalamayeen baa ku soo codsatay oo ku tiri war ii hiili muslimkiyow gaalkana ballan baad kula jirtaa alla wuxuu leeyahay ballanta ha ka bixina ana u hiilinina وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ولا ليه نهدي ويدستان هي لا أهيلية إلا كوا أضوجه هيلين إنسان إنيهين كوا بلاني إذن كده حيسموه ولا قصور يا نصوص بدن بمعناها كتوسيس قصة أبو بصير با كتوسيس في الصحيحين كتمت قصة روحها كتوسيس حذيفة بن اليمان إيا أبيه في صحيح مسلم حذيفة بن اليمان وحليه هي دقال كي بدر إنان كقيب قالوا إيمديدين وحكلا إيمديدين وحان أرنتن كأهي وان صابح يقوليها أنيا آباه حسيل أنه النبي قصعنا صلى الله عليه وآله وسلم دحدا مركان ركوسو جيرنا waxaan naqabatay quraysh gaaladii quraysheed baa gacanta lagu dhigay markaas waxayna yiraahdeen maxamed baad u socotaan waxaan niri maya uma socono magaaladan u socnaa maxamed uma socono markaas ay ballan naga qaadeen ahdi iyo ballan bay nala galeen inaana maxamed u heelinin dagaalkana aanan la gelin ballantaasay nagu sii daayeen waan soo tagnay nabiga nabi sallallahu alayhi wa sallam rasuulkan khabarkii iyo warkii uga waranay rasuulkii ilaahay waa soo soconay inaan ku garab istaagno dagaalka kula galaan u soo soconay quraysh baa saddexda naga heshoona qabato ballanta nala gashay inaanan ku hiilin dagaalkana kula galin ballantana waa xambaarsannahay sidaana waa u soconay maxaa xal ah nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri kaca iska laabta ballantoodaan u ilaalinaynaa ilaahayna waa u kaalmaysanaynaa allah baan u kaalmaysanaynaa dagaalkooda ballantay idin la galeenna waa ilaalinaynaa ee kac iska noqdo dagaalka ka laabta arintaas ay diiday buu dagaalkii badar inaan ka qayb galo billaahi calaykum bal u fiirsada qisada nabi muhammad sallallahu rabbi wa salaamu alayhi maalinkaasi rag buu u baahan yahay aad buu ugu baahan yahay laana quraysh bay ishayaan ragga dagaalameen la socdana waa rag aad u yar 300 iyo dhowr iyo 10 nin weeye gaadiidkay wataan iyo tiknikadoodu ay yar tahay qurayshina waxay ku socotaa kun ka badan bay ku socdaan fardaha iyo gaadiidka lagu dagaalamay u dhameystiran yahay maalinka nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam rag buu u baahan yahay ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكير حذيفة يا أبيه كعلابته عهد قودية بلن كودين إلى لين إن إلهنا وأكل ميسانينا هذا تهي قال إنسان لولا رقميو بلنتيسي لا إلى لينيو كورن بلمها عد مسلمين تلقليس كورن بلمها عد ولا لها لقليس كان عسيبا إذن دحمر يهشيس بل لما كليه وحبا إذن مهر هشيسيا إذن دحمري
waxba la isku ogaanaya waxba la kala saxiixanaya waa dad muslimiin ah ballantii gaalada haddii ilaahay halkaa saaray kii muslimiinta ka warna aad la gashay seed ku badbaadaysaa waa arrin halis ah saas daradeed waxaad arkaysaa dhaqankeenna maanta markaad u miisaanto ku miisaanto wixii quraanka iyo sunnadu ka warrameen shatana ma baynahuma wa kala fogyihiin nahnu fi wadin wa hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi wadin akhar qissa kale sunan abi daawud iyo qeyrkii bay ku timid waana saxiix nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xilligiisii bay dhacday ninka la yiraahdo abu raafic ayaa wuxuu leeyahay waa saxaabi xilligaasi qisadu dhacaysa gaal buu ah quraysh baa isoo dirsatay buu fariin bay u soo dhiibeen nabiga inuu gaarsiiyo sallallahu alayhi wasallam quraysh markay soo dirsatay makka laga soo diraya magaalada madiina markaan imidoo nabiga arkay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayaa qalbigayga waxa ku dhacay buu islaamnimo sida uu nabiga u arkayba ilaahay qalbigiisa wuxuu galiyo ku sharxay inuu islaamo markaas rasuulka waxaan ku dhibay rasuulka ilaahay baan ku dhaartay inaanan ku noqonaynin waligay aan dib ugu laabanin nimanka ay soo dirsaday waa islaamaya waana kula joogaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam anigu ballamaha ma jabiyo irgada la soo dirsadayna ma xanibo ma celiyo irgay baa tahay irga la soo dirsaday baa tahay irgada anigu ma xanibo mana xidho mana celiyo ahdi iyo ballanna ma jabiyo kaclaabo kuwii ku soo dirsaday ku noqo waa quraysh iyo gaaladii ku laabo markaad iyaga u tagto haddii waxa hadda qalbigaaga ku jira islaamnimo jacaylka uu ku sii jiro markaa soo noqo abu raafic wuxuu leeyahay waan laabtay quraysh baan ku laabtay طبعا فرينتودي بو غدبيه خيلكودي بو غوتay marka kadib baan soo noqday nabigaanu imi sallallahu alayhi wasallam markaasaan islaamay buu fiirsada ilaahay baan idinku dhaariyo fiirsada diintu wata islaamnimo wata rasuulkeedii wata waka dhaqankeediina waka beentan ay gaaladu akhrinayso waxba kama jiro waxa lagu leeyahay heshiisyada caalamiga ah heshiisyada xuquuqda heshiisyada nabadgeliyada kii dajiyay bay u danaynaysaa oo xoog badan oo ka daciifka ku cunaya andimad dawli ah munadamaad caalami ah heshiisyo caalami ah wariya kula dajistay yaa goobjoogaha markaa dajisanaysa yaa dhowr dawladood oo adduunka mar waxooga xoog yeeshay baa wax walba intay dajisteen bay magaca mariyeen dawli caalami ayadoo dhan oo wada khiyaamo ayaguna isku khiyaamayaan dadkina ku khiyaamayaan markaasay afka la gaadhayaan nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaam alayhi iyo diintan iyo dadkeeda ahdigii waka diintanaduna wata rasuulka nagina waka khawanada aan aqoonin ahdi iyo ballanta aqoonino qissa kale ayadana sunan abi daawud iyo qeyrkii bay ku taala sulaym ibn aamir in la yiraahdo qissada warinaya حلقي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه معاوية صحابي نبي أرددي سكن بده السجا هي نمك الروم قال هذا وحا ودحي بلن هشيس حبت شوتشنا هشيس نبت قليو هشيس كيبا وحو صور دوادي وقتي سي إنو رماضو انتو سو وقتي رمانين ayuu muaawiya wuxuu u diyaar garoobay inuu ciidamada diro dhawaado kadibna markuu ballanku saa u dhamaado asagoo xuduudda jooga inuu dagaal ku gaaciyo طبعا ayagu waxay ku dala gashay ballantu markay dhamaato kadib ma la cusboonaysiin doonaa ballantu masaasay ku ekaan doontaa adigana waxaad u diyaar garoobaysaa ballantu intayna dhamaanin baad is diyaarinaysaa si aad u kadiso oo si kada aad ugu dhufato uga faa'iideysato muaawiya ciidankii buu diyaariyay inuu baxuu damcay deegaankoodii xuduudda inuu aado arintaasi markay soo baxday wareegtadaasi ayaa wuxuu leeyahay nin ordaya oo faras saaran ba soo baxay oo leh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ballan ilaalin
خيانة مايا يا بلنت هلا إلالي خيانة مايا نكاسا صوبحي ننكي هدي لفيريا وننكا من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والله يلاحظه عمرو بن عبسة معاوية وركي سوق قاري نمبا أرنتي بكرح دواقيو برنامج كادو ودتي بكهر يميدو إذا كي يوحي بكرح دواق معاوية وركي هدو سوق قاري ننكي بويا ربل كالي وأويمي وحكوا المحاسكاء حويها وحني جهاد يقالها لا دغالم اي هولا الاسكوغا حيتها وحنات كدخ واقضيه وحنات markaasuu wuxuu yiri Muawiya nabi Muhammad baan maqlay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya hadalka nabigu sallallahu alayhi wasallam Muawiya ka weyn oo cid walba ka weyn oo Abu Bakar ka weyn oo Umar ka weyn oo madaxweyne ka weyn oo boqor ka weyn Muawiya uu kaadi wax ka weyn ba meesha yaala nabi Muhammad baan maqlay sallallahu rabbi wa sallam alayhi isagoo leh عيد كله بلاني كلا دحيسو وفير سدا يوسن جنتين يوسن جنتين مد جنتنيدنا يوسن فورين إلى بلانت وقت جدي دمادو أما دتكي بلانتو كده حيسي وسعد بلانتو دي وقطورة سي إسقى يجوبا أي أسميهين إلى أو بلانتي إلى هذا ور بلانتني ما تشرته كتلا جلا أيجا يسقى أسميه ساس دراد كنت مهن عاد حريص إذا مدن عاد ديارينس هولهن استعدادات كان يديار جروجان معاوية نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديث كي سديدا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي بوها يا مدحنا كبرانيين تما هاي إما أنت نهدي له قيد هذا الله يري يا رسول كيساير ورودادو مساجك الآن يا مساجك الآن حفيزك مدحوينها معه حفيزك برلمان كان معه قولها برلمان كان معه ودادو مساجدك كوعدي كلا معاوية هدي حديث النبي قال له أخري صلى الله عليه وآله وسلم أرنتي تطلي واكن صلي وجوجي إلهي ما ندخل داري وفير صدا حدوني جانس إنه كفى إذا استوى عدو جيس الضربيه لكن جانس كلا كفى إذا السنة يوالد دي نوع مركو يهي مايا آيات القرآن كأمر خاتك عايز وإما تخافن من قوم خيانة ضد بلن كالد حي هذات كبق ضه أما كيابتو إني بلن كوكو خيامان ويكو خيامان يعني أدو خيانة صوتاني أدوكونا خيان هسدي يا محل يلي فانبذ إليهم على سواء هذا الخيانة كدرين تو يا بلنتي إني كأجب حيان هيسديهن هرتوت كبح بلنتي سي أديك يجو أدو سيمنتين وقطور بلنتو دي سي وقطور واحد ترى هذا خيانة إذن كم وقتا بلنتيني متشرتي كتلا قالوا ديار جرودا وحي هذا إن قد كدم بينا عرنت إنه بلاني متشرتي وهذا قال فانبذ إليهم على سواء هذا سائل خائن باتعيوه إن الله لا يحب الخائنين إلهينا كوا خائنين تامجعلا وتدين إسلامكو ضد يدو إسخيات ما ضد كيدو اسم خيامان ضد كيدو ضد كلمة خيامان دولتها ما خيامان شعوبتها ما خيامان شركتها ما خيامان خلقك ما خيامان لأن وحي الرميسيهن كتاب كساؤها الله وحي الرعسيهن الرسول كسيدا أردق ما صلوات ربي والسلام عليه تاساد مركا قرن كرتان ما أنت دقن كينية سيدو ويالو هي الدين تانو وحي كهالليسين آدو كلا دروكسيه أسباب ما أنت كنتي مسلمين تين عدو قود اللقصة اللي دانا أسباب تا وحا كم إذا بلن حمدا نبي محمد باسيدا يلي صلوات ربي والسلام عليه قوم حدا يبلنت تشبيان ويبلنت كبحان إلهي وحو كصة اللي دا عدو قوده مركزو وحكضو أكتوضا قالي كهاي وحو دي رنبو حلاشدا خيرات كودو بوبا دل كودو قاتا حرمات كودو حلاشدا وحكستو كسمية لماذا؟ لأن بلن بيتشبيين هداد بلن تتشبيسو نتيجة ديدو وعدو قاقو إنو كو قبصة دوان وح سهلا ما إننا وعيارينا بلمهنا وكو عيارينا أمديه كلنا إنبضنا وكم إذا خيانا كو دحودنا دولد هداد بلن لقشو أذر بلنت إلالي
ummad haddaad ballanta la gasho ballanta ilaali sharikad haddaad la gasho ilaali shakhsi haddaad la gasho ilaali haddaad khayaanto soo maaha ilaahay waa kugu maqan yahay fi suurati tawbana alla wuxuu ku cadeeyay khiyaanada natiijadeedu inay tahay munaafiqnimo qalbigaaga gasha ilaahay qalbigaagu munaafiqnimo gelinaya diinta laga abaari oo meesha marka horeba laga gali doono waa diinta waana meesha ugu halisan waay اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا سيدا استرادت إلهي أنك بغن بالله ما هلا إلهي خيانة هلا فوق هذا لقدمة هلا إسكدايو مكري يلا لابك هلا إسكدايو مسلم باتهي إلهي الرميسان كتاب كيسية سنة دي سر رميسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقامة يتصنان خلقك كل دقن لا لابك أنا إسكدا سيدا ساد إلهي أكتي سوحوين كجهلي عذاب كيسي عقوبة سي الدنيا آخرنا أتكجبت بعد إساء صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك